akhyaarta soo dhawaada ee ku soo dhawaada xirfad kaab waxaan insha Allah arkaynaa casharkeena labaad maanta ama casharkeena xiga waxaynu ku arki doonaa list ordered ah marka listkan waa faanay oo listkan wuxuu ku dhahayay inaad diyaarin kartid sida tan kadibna aad dhibca u samayn kartid unordered list baa la yiraahdaa kan oo maartay madaxa kan maartay si uu kala awood badan yahay ma muuqato marka waa iska dhibco laakiin waxaa jira list kale oo la yiraahdo ordered list marka insha Allah listkaas ayaynu arkaynaa ordered list marka waxaynu sameynaynaa xaggan ugu sarreysa waa xoogaa baan dhaqaaqaynaa xaggan oo kale aan ku qoranaynaa order listigeena waxaan leenahay h2 listkan waa ordered list ordered listiga marka seeba u shaqeynayaa wax kale ma ahan ordered listigu yani uu tirinaya tira caadi ah weeye waa tira caadi ah oo automatic wax noogu tirinaysa marka asaga waxaan isticmaalaynaa ol ayaan ka bilaabaynaa kadibna maxaanu xiraynaa ol ayaan xiraynaa waa hagaag markaas waxaan leenahay sida tan li listki baan tirinaynaa macnaha hadda example waxaan tirinayno waxaan leenahay shati li alaabtan gadno oo kale waa ka dhigi karnaa sidii oo kale waxaan leenahay computer waxaan leenahay li baskiil lena li caano iyo li qaar kale oo badan aan saf gareysano marka sa aragtaan waxaynu samaysanay title-kii kadibna waxaan list gareysanaynay ol taas muhiim ah inaan ka bilownay ol ta markaan double click dhaho ol ti kale waa kaas kadibna li da listkii weeye li baa lagu soo xirayaa list oo mid walba list ka mid ah waa saf gareysanaynaa waxaynu tagaynaa insha Allah refresh baan leenahay waa aragtaan listkan waa ordered list 1 2 3 4 5 6 saasoo kale u soconaya marka listkan marka qaabkaas u shaqeeya oo asagu waa numbers halka kii hore uu ahaa mid dhibca marka qaybtan intaas insha Allah ku keenaynaa aad baad mahadsantiin السلام عليكم أخيارتا كسو لوادا بهذا حرفة كاب إن شاء الله عشر كان وحن كو يقدونا هدي له يرادو إن سيدا صور لو سو قشتو ويب سايت كادي مركا ويب سايت كي أيان أير ودنا إن شاء الله سوقو نودا ما يستلم دونا آخر كا مركا وقدوم بيسا waxaanu arki doonaa marka insha Allah sida loo soo galiyo sawirka ama sawir loo soo galiyo HTML kaada sameeyay marka sawirkaas aad arkataan bb aynu u bixinay ayaynu insha Allah aynu doonaynaa in soo galiyo marka sawirka waa soo koobiyeysanayna waxaanu dhiganaynaa folderkii aynu ku shaqeysanaynay ayaanu dhigaynaa hadii Ilaahay yiraahdo folder kalena ka sii sameeynayna oo website marka sameynaysid inta badan marka halkan ama meeshan ugu horeysa aad dhigtid koorarkaada caadiga ah imageska iyo waxyaabaha kale oo kale meelaha la dhigtaa meel gaar ah la dhigtaa marka imageska halkaas oo kale dhiganay bbb.jpg weeye sawirka waa inaad garanaysid ama sawirka aad gelinaysid maxaa riyaada waa inaad extensionkiisa garanaysid marka hadda waa jpg okay wahaga marka waxaynu rabnaa website-keena yarka ahaa inaynu insha Allah aynu soo galino maxay sawir aan soo galin marka kaba soo qaad meelahan oo kale aan sawirka soo galinaa dhexda insha Allah hadii la yiraahdo marka waxaynu sameynaynaa listkan ku xijinaynaa okay halka kana soo galinaynaa waxaan leenahay horta hr yar baan u dhigaynaa waa hagaag marka sawirka marka la soo galinayo qaabkan loo soo galiyo image src equal pathki ayay sheegaynaa pathki meeshuu ku jiray marka wuxuu ku jiraa dot images slash bb.jpg kadibna saan leenahay okay marka imagekii qaabkaas aynu maaragtay fudud ayaanu ku soo galinay image src dhibic waxaan u dooranaynaa waxa weeye meeshii inuu maaragtay si raaco rootka dhibicda rootka ka bilaabaya meesha website ku save gareysna marka website-keenu de maadaama qaabka u diyaarsanaa ayay maaragtay inoogu fududaanaysaa insha Allah inaynu maaragtay aynu wax ka bedeli karno marka bal waxaan fiirinaynaa marka sawirkii inuu maaragtay noo soo galay ayaynu bal fiirinaynaa insha Allah hadii wax ka khaldayna sixi doona insha Allah okay waxa aragtaan marka inuu noo soo galay maxay sawirkii inuu noo soo galay qaw foundations ayaa noo soo gashay sawirka ayaa noo soo gashay okay waa hagaag waa logo marka waa hagaag marka waxa kale oo marka meesha ku jira in align aan dhihi karno align
aligntiisa aan dooran karno waxaan dhihi karnaa kaba soo qaad right okay waxaan leenahay bal refresh waxaa aragtaan sawirkii maxay inuu markaa halka midigta ay isu bedelay ayaad aragtaan marka alignta saddex qaybba meelood baa dhigi kartaa sawirka left right ayaad maaragtay dhigi kartaa iyo center ayaad dhigi kartaa okay hal arrin oo kale marka waa jirtaa oo ah inaynu insha Allah widthka wax ka bedelno marka waxaan leenahay widthkiisa wax ka bedelaynaa sawirka ballaciisa sawirka widthka iyo heightka labadaba wax laga bedeli karaa marka width iyo height marka widthkiisa waxaan leenahay 300 baan leenahay hadda xogaa wax moodaa inuu aad u weynaa marka dhinaca kalena intaas oo ka dhigaya marka hadda aragtaan hadda saas u weyn yahay sawirku marka refresh dhano sawirkii maxaa aragtaan inuu yaraaday ayaad aragtaan oo shaqadii marka inoo qabanayo website-keena waxaa aragtaa sida kuwii sagaashameeyada la isticmaali jiray ayuu hadda u samaysan yahay dee ma qurux badna laakiin nidaamku inoo fadhiya saasoo sheekadu saasay ku socotaa wahagaag marka waxaa aragtaan sawirkii inaynu ku guulaysan inaan soo gelinay inaynu sawirkii marka aynu left iyo center iyo meesha rabno aan dhigi karno inaan widthka iyo heightka wax ka bedeli karno ayaa sidoo kale aragtaan halkaas marka insha Allah hadii beeraad ku soo gabagabeynaa casharkeena image la xiriiray assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير كسر دوادا كورسدني إن شاء الله يبعد حفظ كاب يعني يقول جنر أبيض إن شاء الله يدين سعودي السعودية إن وحينو سعودي كورسدني أيام برتمها إنه مريسين سيد الله سعودان وحينو كعسن محالي هذا إكزام ومرة البكم وينو كوك عسن هاي سي معركة ويب سايت رسمي أو سميسيد هذا أنت هيك تعمل كسمينيسيد قصب معها هنا كعسيد كان أو ديسكتوب كذا أيام سكتة مثلا كرتها لكن dan badan baa kugu jirta kan inaad isla la baratid si markaa hadhow website rasmi markaa sameynaysid aadan problem badan u arag sidoo kale hadhow videoyada oo kale markaan soo gelino ama video YouTube ku jiro kale ama iframes ka soo gelinayno waad dareemi doontaa insha Allah markaas waxaad arki doontaa haddii kan la'aantiis ay ahaan lahayd kuma shaqeynaya HTML kaliya oo desktop saaran hadduu yahay marka kan waa serverkii marka insha Allah maartay waa muhiim arrintaasi okay marka inuu ku shaqeynayo kale sideena caadigeed baan fiirinaynaa xagga kan ayaan waxaan ku dhufanaynaa local host ayaan ku dhufanaynaa local host okay sorry website kaas nigada kama baahan ka soco kan marka local host wahag marka halka markaynu local host ku qorno waxaad arkaysaan maartay insa inoogu soo baxdo xaaladdu marka waa okay ka dhigan tahay marka maxaa la yiraahdaa xagga kan waxaynu samayn karnaa waxaynu tagi karnaa sida tan ayaanu local host u leenahay hal mar ku calinaynaa markaas waxaan leenahay waxaan filayaa website inuu ahaa my website taas inuu ahaa rajaynaya mise wuxuu ahaa xirfad Kab Lab local host horta dheh waxaan filayaa inuu ahaa xirfad Kab Lab yes xirfad Kab Lab now marka waxaan tagaynaa forms kana hadda marka diiradda saarayna insha Allah casharkan cusub ayaynu insha Allah diiradda arki doonaa marka website-kan ayr buu soo socdaa ilaa intaanan awal naqaanay sida loo sameeyo ilaa luiskan marka hawsha halkaas insha Allah ka sii wadi doonaa qaybtan marka cusub insha Allah waxaan ka arki doonaa formska waxa loo yaqaano horta formska maxay yihiin formska wax weyn ma ahan oo aragtay inta badan markaad maartay website booqatid meesha contact us-ka nala soo xiriir meesha ku qoran tahay fadlan magacaada geli ama maartay ama registration hadii la sameeyo ama wax la mid waxa arkaysaan qofka in maartay magaca la gelinayo magacaaga magaca asaas telefonkaada laba su'aalood mid dooro waxyaabo noocaas marka wax alla waxa formka waxyaabo badan baa loo isticmaali karaa marka ama registration ha noqoto ama subscription ha noqoto ama maartay nala soo xiriir ha noqoto waxyaabo badan baa formka maartay loo isticmaali karaa ama database caadi ah lagu xiray barnaamij gaar ah ha noqoto siyaabo badan baa loo isticmaali marka formka marka sida loo sameeyaa way formkii kala duwan si loo saaray marka formka waxa ugu muhiimsan oo marka ugu horeysa ugu muhiimsan inaynu marka insha Allah aynu aragno qaabka loo isticmaalayo okay marka calaamadii HR ka ilaa inta hore waan naqaanay calaamadii HR ka baan soo kacsanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu sameynaynaa marka xagga kan ayaynu maartay insha Allah qaybtan comment baan ka dhiganaynaa si aan qaybtan u arag commentiga saana loo sameeyo HTML ka xaggan aan ka soo xiraynaa marka commentiga ka joojinaynaa hagaag comment inta comment kaleena waxa soo garan marka kan ugu horeeyay hadda arkayna okay input type equal text orso marka koowaadna forms ka sida waxa la sameeyaa marka form sameynaysid halkan form baa la dhahaa halkan
ugu hooseysa qoraalkeena dee halkaan noogu hooseyn doonte qoraalkeena halkaan noogu hooseyn doonto marka saan dheh form waa la soo xiraa si marka intaasi in iswada waa hagaag marka maxaynu qornay halka kan marka formkan yarka ah waxaan qornay input type text placeholder iyo type something marka waxaanu fiirinaynaa xagga kan aynu soo furanaynaa waxaan leenahay insha Allah refresh baan leenahay refresh saa soo soco marka waa aragtaa waxaanu samaysanay placeholder keeni ayaynu marka aynu samaysanay wax laga inaan si fiican u arag waxaan samaynayaa waxa kor baan u qaadayaa si aad ma aragtay aad u aragtid marka waxa aragtaan placeholder keeni ayaad aragtaan type something here okay placeholder ku sida wax weyn ma qabto formka wuxuu siin karaa waa meel ma aragtay qoraal lagu qorayo marka type-keeda waxa la dooranayaa text balse waxa kan waa qoraalkii type something here halkan wax ku qoro kale qofka dhigi karta halkan geli maxaan dhihi karnaa ama faahfaahin oo kale inkastoo faahfaahin badan aysan iska ahayn ama product description ayaynu dhihi karnaa marka hadaynu hadda maaragtay refresh dhahno maxaa la yidhahdaa halkan faahfaahin geli baa noogu qoran soo maaragtay marka qofka hadhow dultigaya qoraalkii kaa class tirtirmaya marka placeholderku qoraalkaas yarka ah meesha ku saarmaya ba placeholder mar alla marka wax qortid qoraalkii automatic buu tirtirmaya inaad tirtirtid maaragtay oo ma baahna marka input type-ka marka aynu dooranay waa text iyo placeholder marka kan marka waa maxay placeholderka sida loo isticmaalo waxaan filayaa inaynu marka aynu fahno marka waxa inoogu xigta marka inaynu aragno maxaa la yiraahdaa inaanu aragno insha Allah text maaragtay meel weyn oo wax lagu qori karo qoraal weyn lagu qori karo oo kale inaan aragno oo text area inaan aragno marka text area waa very important text area waa very important waxyaabaha aadka loo isticmaalo maaragtay iyo ku jirta waxaan sameynaynaa marka tanasan baan leenahay okay pr waa muhiim xagan inoo dhe si wax u kala go'aan aysan isu saarmin okay pr baan leenahay marka text area baan maaragtay insha Allah aan ku soo gashanayna marka text area wax weyn maaha text area inta badan wax filay inaan aragtay marka lagu dhaho magacaada geli taleefankaada waxa geli hal hoose oo lagu dhahayo maaragtay waxa ku reebtaa faahfaahinta ama sharaxaada dheereyd sharaxaad dheer bay ku fiican tahay text area meel maaragtay waxa weeye option badan marka hadaan refresh dhahno oo hoos soo socono waxa aragtaan text area marka long text goosiya ka tan qoraalka inaad iska tirtirtaa kadibna maaragtay qoraal badan aad ku qortid u soconaya halkaas maaragtay qoraal badan baa lagu qori karaa saad la socotay marka fiiri waa kan alsaana kor baxa kan ugu soconaysaa saana hoos baa ugu soconaysaa ma garad marka tan waxaa la yiraahdaa maxay waa text area saas loo soo gashaa text area baa ka horreysiinaysa halkan waa qoraalkan Soomaaliya aad ka dhigi kartaa fadlan halkan sharaxaad ku qor baa dhigi kartaa waxana waa iska Soomaali laakiin text area labadaas koor baa labada tag baa muhiim insha Allah waxaan arkaynaa selectiga ayaynu maaragtay insha Allah arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo oo qodob kale oo asna aad muhiim noogu ah inaynu maaragtay wax ka aragno optionska markii waxyaabaha la dooranayo inaynu wax ka aragno insha Allah hagaag marka okay waxaan leenahay refresh baan leenahay korkeena dhammaan ku soo dabsanay marka optionski ama choose ka markaan sameynayno ama options dooranayno aragtaan choose marka waxa aragtaan xaggan markaan choose an option dhahno inaynu 1 iyo 2 dooran karno xogaa waxaan filayaa halkan ayaan ira gaabinayaa si aad u aragtid hoos soo soco marka waxaan ana choose an option fadlan wax dooro ama 1 qofku inuu doorto ama 2 inuu doorto yani meel qofku wax leedahay fadlan state ma ka weyn tahay ama 15 ma ka weyn tahay mise ka yarta ha ama maya samarta soo kale marka waxyaabaha noocaas oo kale aad sameynaysid ayaa option-kan choose an option ku maartay uu fiican yahay waana arkaysaa formka adduunka marka buuxinaysid 1 iyo 2 iyo waxa arki kartaa marka halkan xitaa qofku de wuxuu waxa way choose an option-ka waxa way wax dhigi kartaa female iyo male ayaanu dhigi karnaa halkan iyo male ayaanu dhigi karnaa oo halkan waxaan dhigi karnaa choose an option meeshaan dhahayno waxaan leenahay choose your gender aan leenahay genderkaada dooro adigu ma choose an gender okay save baan leenahay halkan refresh dhe choose your gender hadda waa aragtaa marka qofku wuxuu dooran karaa email male haddii dhadig iyo lab saas oo kale ma garata marka tana waa dareemaysaa waan rajeynayaa dee formka qofku markaa ka xaraynaysid sometimes waxa laga yaabaa inaad u baahatid qofku inuu maaragtay uu sheego maaragtay statuskiisa inuu qofku sheego waa muhiim qodobka kale oo muhiimka ah isaguna inaynu barano wax kamid ah checkboxyadu maaragtay aad bay muhiim noogu yihiin marka checkboxka ugu horeeya aynu arkayna radio boxka baa jira
waa ay badan yihiin checkbox iyo radio box ayaa jira marka insha Allah labadaba inaan kala aragnaa rajeynaya okay checkboxkan check gareynaa hadda refresh oo soo soco checkbox waa aragtaa dhag checkboxku marka muxuu ku fiican yahay checkboxku waa qaab macnaha wuxuu diyaarsan yahay ii sheeg inaad dooran kartid laba iyo ka badanba waa dooran kartaa checkboxka su'aalaha markii example radio boxka radioga iyo checkboxka difference waxa weeye checkboxka markii lagu leeyahay fadlan su'aalahan ka jawaab waxaad doorataa inta aad maartay saxan oo dhan marka checkbox weeye marka kalena waa radio box so radio boxka laba su'aalood laba jawaabood mid unba dooran kartaa labada ma dooran kartaa ama saddex ma dooran kartaa marka laakiin checkboxka maartay mid bas baa dooran kartaa maartay waa checkboxka waxaad dooran kartaa inta rabtid qayb baa dooran kartaa marka waxaan dhigi karnaa hadda tan waxaan u bixin karnaa ii sheeg checkbox waxaan dhigi karnaa click me waxaan dhigi karnaa qof waxaan dhigi karnaa dooro inta saxan ayaan dhigi karnaa saasoo kale dooro inta saxan kadibna qofku maartay wuxuu dooran karaa jawaabaha maartay qofku uu u baahan yahay oo dhan marka saas u dooran karaa okay labada qaybood hadda waxaan kala bixinay laba jawaabood see me click me okay marka refresh baan leenahay now you see dooro inta saxan tan waa dooran kartaa tan waa dooran kartaa checkbox waa saas oo kale halka radio boxka laba midkood mid un baad maartay dooran kartaa ma wada dooran kartid okay marka waxaan arkaynaa radio boxka ay arkaynaa radio boxka save deh radio boxka refresh baanu leenahay xaggan hoos soo soco radio boxka waxaa artaa option 1 option 2 soo maartid labada option ma wada dooran kartaa hadda u fiirsa halka 1 haddaan doorto waxa ka qaadan karto haddaan 2 doorto halka fiiri kan waa dooran karaa kan waa dooran karaa checkbox marka labada option ba waa dooran kartaa halka radio boxka aad mid dooran kartid kaliya meelaha qofka waxa su'aalaha lagu talagalay in qofka lagu weydiiyo su'aalaha la rabo in maartay specific maartay wax shay gaar ah uu qofku doorto kan waa kan ugu dambeeya oo ah maartay submit buttonku dee waa garanaysaa formka qofku markuu buuxiyo meeshii ugu dambeysay oo submit dhihi lahaa wey marka input type submit iyo value halkan hadalkii wey kan submit kare aan dhihi karnaa magarat save deh refresh baan leenahay ninka hadda waxa aragtaan submit kare marka hadda waa aragtaa qofka maartay halkan waa soo buuxiyay faahfaahintii uu soo qoray xagan kale waa yimid wuxuu ku soo qoray maartay takastiyadii kala duwanaa xagan wuxuu doortay female iyo male inuu yahay halkaa wuxuu doortay labadaas siduu rabo halkan wuxuu doortay option halkaa markaa kadibna ugu dambeyn wuxuu dhahayaa submit buu dhahayaa marka hadda submit kadib ma shaqeynayso wuxuu xirtaa database in lagu xiro oo maartay ma SQL lagu sii xiro oo markaana kadib markaa la dooran karo laakiin conceptiga waxaan filayaa inaad fahantay formska iyo maartay sida loo isticmaalo hadii la yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad maartay aad intifaacsan doontid aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وايد سلامي إن شاء الله قيبتان وحين إن شاء الله أدي الله يرادو كارك دورنا إن محل يرادا سيدا إن لينك يدا لو استعماله لينكس كان لو استعماله سيدا يدا حكمة دوينة فهمتيد وبسيد والبو لو استعماله يو وحو كسميسين هاي واللينكيو لو يسكو حرير هذا وحنا بوقنا إن إكسامبل هذا كبسوقات وحنا بوقنا إن هدي الله يرادو حرفات كاب مركا وبسيد والبو حوا إنترنت هي علص أو حفلة إنترنت موبيل كان كحرطي مركا iska ma awood badna mobilka markaad kaga xiratid internetkiisa marka xigmadda waxa weeye website-ka dhan oo aad arkaysid ma ahan wax balabala ah oo ma aragtay cirka laga keenay waa bog baad samaynaysaa bog kala samaynaysaa hal bog oo weynna waa isaga xiraysaa marka xigmaddaas horta sida website-yada oo dhan u diyaarsan yihiin sida dhan oo aad arkaysid oo kala duwan waa hagaag marka taa waa inaad saa u fahamtid insha وهكذا marka hadda saa u fiirsatay hadda xirfad qaabka kan uu sameeysan yahay maxaa la yiraahdaa kan waa home-kii kadib halkan waxyaabo kala duwan baa ku jira halkan waxa ku jira waxyaabo arrimaha bulshada la xiriira halkan maartay adeegyada la talinta oo maartay ganacsiga kala duwan ama maartay lagu la taliyo sida maartay qorshayaasha ganacsi markii qofka la dejinayo iyo khidad qofka markii maartay suuq geyn la dejinayo adeegga suuqeynta oo kale
iyo oo ma aragtay ganacsi cusub qofka markuu rabo in mentorship dhammaystiran la siiyo oo ganacsigaas min bilow oo dad khubraa inta lagu xiro min bilow ilaa dhammaad qofkaas ganacsigaas si uu guuleysan lahaa in ma aragtay loo sameeyo labadaba ma saddexda talin oo kala duwan marka laba qaybood bay sideeda xirfad kaab adeegyadooda kale example kala baxaan marka qayb waa la talinta qaybna waa waxbarashada qofku in asagu wixii barto oo kadibna asagu farsamadii halkaa ka dhex helo marka xigmadda waxay tahay boogan kala duwan qaabkaasi marka isugu xirxiran yihiin kan homeka ayay ku wada linkraysan yihiin marka insha allah casharkeena maanta waxa weeye inaanu fahno sida marka website-ka maaragtay la isugu link gareeyo insha allah haddii ilaah yiraahdo inaynu maaragtay aynu fahno marka waxaynu sameynaynaa web page yar oo maaragtay kan ahayn baynu save garanaynaa kan hadda waxaan iska sameynaynaa kaba soo qaad hello worldidan ayaan isticmaalaynaa hello worldidan marka xogaa si aan u dareeno in hello worldida aan meesha keenay xaggan homeka ah ayaynu maaragtay bodyga homeka xaggan waxaan ku qoraynaa h weyn markaas waxaan qoraynaa hello world link ama pagean kaba soo qaad inuu awood aas ama wax lamid yahay baa laga yaabaa marka we save halkan waxaan dhahaynaa saasoo save garanaynaa hello world marka hello world talo wax keeba noo yaallaa hadda waa su-aal inaynu isweydiino halkan minoo yaallaa folderka minoogu jiraa xirfad kaab lab hello world okay hello world xirfad kaab xaggaas inoo dhex yaallaa waa si wanaagsan marka formaskeeni baan tegaynaa waxaanu sameynaynaa xagga kan ayaynu maaragtay ku soo xidhaynaa marka waxaan leenahay harif saanaan leenahay href equal meeshii aan markaa aynu wax ku xiraynay ayaynu dooranaynaa marka maxaynu leenahay hello world html waxaan leenahay kaba soo qaad pagekan waxaan loo yaqaanaa about us page kaba soo qaad eedi baan kusoo xiraynaa so waa save garaynaynaa sometimes waxaa inuu ku shaqeyn waayo marka dhibic iyo wax saas oo kale la dhaca ma garanta marka laakiin hadda waxba dhihi mayno horta bal marka hore ha inoo shaqeyn waayo marka waxaan leenahay refresh sorry form is soma okay refresh okay waayahay soo soco waxaan fiirinaynaa marka waxaan rabnaa inuu toos hadhow noo geeyo about us page hadda u fiirsa boggeenan maxaa ku qoran liska waa orderada waxaasa ugu sarreeya soo ma baa ugu sarreeya soo ma marka fiirso page waxaa la rabaa inuu na geeyo hello world ugu sarreyso so waxaan leenahay about us page dhag maxaa aragtaan hello world inuu toos inuu soo maaragtay geey so sometimes xitaa maaragtay linkiga waxaa lagu xiri karaa website-yo kale ayaa maaragtay xitaa lagu xiri karaa sidan oo kale aan dhihi karnaa href equal waxaan dhihi karnaa google.com saan oo kale halkan waxaan leenahay halkan google ka gal okay marka website kale ama website kale ay wada shaqeysaan oo kale ayaa linkigooda marka samayn kartaa refresh marka saas soo dirugsi okay kan waa kii aha linkigi baan ku jirnaa sorry refresh de oo soo soco halkan ka gal google marka linkiga marka la booqdo fiir wuu isbedelayaa kalarka okay fiirso waxaan leenahay google marka google hadda nooma load garayn karo somehow oo internetkeena waa maaragtay inaga xadidaya laakiin waxaan filayaa inaad fahantay conceptiga maaragtay linkiga saas u shaqeeya saasaa marka bogga kala duwan la isugu xirxiraa waxaan rajaynayaa marka inaad halkaa aad fahantay marka casharada sometimes waxa laga yaabaa inaan boobsiinayo boobsiinta marka adiga waxba hawa arag koos adiga physiogii duwan baa haysataa marka adiga timekaada qaado istaajiso ku casho soo caris chance fiican baad haysataa maaragtay marka aniga waxaan rabaa in maaragtay videoga uusan cuslaan oo qofka maaragtay aan markaba maaragtay wixii aan maaragtay muhiimadii aan diiradda saar meesha waqti badan aan ku dhumin lahaa waxyaabo kale aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت وإذا سلامي وإنجنير أبيض إن شاء الله هدي إله يرادو كورسات أما قيبتان وحن كأركي دورنا هدي بيرادو وسوق جبجبيني أو مارت كورسات almost إنه جبجبو إن وحنا أركينا هدي إله يرادو تايبل إسكا أيام حكارك دورنا سيد تايبل خلاص سمي سيد الله سعتان وبسيط كأنت بدل مركز سمينا يا أما ديف بالو ده سمية أما تايبل بالو ده سمية مركا ديف ساركتين هذا مارت example سان أو كلا هذا دينو دهنو ديفتن أو كلا ساس أو كلا ayaa website-ka dhan lagu dhex qoraa diftan oo kadibna la soo xiray soo website saas u samaysan yahay ma garad marka qaabkaas oo kale u diyaarsan tahay marka conceptiga marka muhiimaddu marka waxay tahay inaanu marka insha Allah hadda qaybta waxaan arkaynaa table-ka
ayaan gaar ahaan usii arkaynaa. Marka meesha ugu sarreysa ayaynu tagaynaa maanta si xoogaa uu u muuqdo. Okay, bodyga marka lasoo furo ayaynu maaragtay table halkaas ka sameynaynaa. So tablekeena ugu horreeyay waxaan leenahay table baan soo furanaynaa, halkaana tablekii ayaan ka xiranaynaa. website-ka dhan arkayso waa rows iyo columns la isku dardaray. Waa hagaag. Marka tablekii markaan soo furano, tablekii waxaan furaynaa tr oo ah rowgii. So halkaan aan ka xiraynaa tr rowgii laftiisaan sii xiraynaa. haddaan tablekii rowgii koobaad u sameynay, rowgii waa in loo sameeyaa maaragtay columnskii. Marka columnka td baa lagu sameeyaa. td waxaan leenahay name ka soo qaad meel wax laga buuxinayo td. Okay, kadib waxaan leenahay td telephone, waxaan leenahay ama id dheh td, waxaan leenahay td city qofku meeshuu degan yahay kaba soo qaad td. marka intaas aan kusoo koobanaynaaba waa hawshan yarta oo kooban. marka hadda refresh haddaan dhahno oo aan maaragtay halkeenan aan save garayno refresh dhahno, waxaa aragtaan sida tan inuu noogu soo baxay tablekii. yani borderkii baa ka maqan laakiin tablekii caadi u diyaarsan yahay. 3 column noo yeeshay, hal rowna yahay. waa hal row, sidaas waa hal row, laakiin waa column name ah, column id ah, column city ah. columnka name-ka wix alaala wixii magac oo dhan baa hoos geliyay, cityda magaalada hoos gelisay. see marka xogta loo geliyaa weeye marka su-aasha marka qaabkan marka saa loo dhaho th baa lagu geliyaa xogta th. marka th ayaad leedahay sida tan magacii iyo qofka. example waxaan leenahay Faarax, qofka magaciisa waa Faarax th. waxaan leenahay haddana th id-giisu id waa 102 th magaaladu degan yahay waa waxaan dhihi karnaa Boosaaso th. okay, we save now. let's say refresh. sorry, waxaan ku dhex darnay meeshii kale aan ku dhex darnay. xaggan waan ka noqonaynaa waxaan ka dhex saaraynaa rowgan ka dhex saaraynaa rowgii horaan ku dhex jirnaa. marka saan leh kan waa kii lagu sameynayay. marka halkaanaan tegaynaa, tr ayaan soo furanaynaa, waan ku xiraynaa. markaas ayaynu maaragtay insha allah save dhahaynaa refresh. hadda waa aragtaan qofkii maaragtay inaan si caadi u gelinay namekii, id-gii, citygii. okay, marka waynu badin karnaa haddaynu rabno insha allah. xaggan waxaan dhihi karnaa ii sheeg mar labaad baynu maaragtay ku noqon karnaa. row labaad baan row kale aan samayn karnaa haddaynu rabno insha allah. row kale ayaanu samayn karnaa. waa hagaag. marka insha allah waxaan ku daraynaa row kale ayaan ku daraynaa. waayo hal row buu ahaa markii hore. th baa lagu gelinayaa mar walba xogta. marka waxaan sameynaynaa kan sande kaas kale dooranaya mar walba. okay, intaas baa haddaan qaadano okay weeye. saanaan leenahay. okay, mar kalena saanaan leenahay. okay, 3 jeer baynu maaragtay insha allah isku dayeynaa inaynu gelino. marka okay, halkaan Faarax waan ka bedelaynaa. waxaan leenahay warsame ama magaca gabadheed ba ka dhig Sacdiyo. okay, id-geedu waa 3 ku nooshahay. let's say Hargeysa. alright, so come here. waxaan leenahay Maxamed, waxaan leenahay 104. xagee buu ku nool yahay? waxaan ku nool yahay Bandar Siyaada. okay, so waa save garaynay. marka waxaan sameynaynaa hadda refresh baan leenahay. hadda waxaa aragtaan in 3 qof oo kala duwan, qof Bandar Siyaada ku nool, qof Hargeysa ku nool, qof Boosaaso ku nool inaan sameyno. marka 3 qof oo kala duwan ayaan maaragtay sameynay. tablekiina sidaasaan ku gelinay. marka tableka saas inoogu diyaarsan website-ka dhan lagu sheegayo. table wuxuu noqonayaa saas oo kale la isugu hal row oo kale wuxuu noqdaa inta badan qaybta headerka iyo wixii lamid ah. row kale wuxuu noqonayaa body, qaybka row ugu dambeeyana footer ku noqonaya. wixii kalena hadhow waa qoraal lagu dhex sameynayo oo dhexdiisa lagu dhex isticmaalayo. marka waxaan rajeynayaa inaad maaragtay aad fahantay sida maaragtay tableka loogu sameeyo maaragtay computerka. aan yiraahdo siba html-ka gaar ahaan sida loogu sameeyo. inaad maaragtay insha allah aad practice garaysid kama soo harayso oo aad ku calacalisid si markaa insha allah wax badanna sii aqrisid oo borders ugu sameyn lahayd, sida colorka ugu bedeli lahayd, waxyaabo badan oo kale ayaad sii sameyn kartaa. sideeda macallinku waa guidance systemka marka lagu soo fahansiiyo waxaan haddii aad rabtid inaad maaragtay aad guul ka gaarto. waxaa muhiim ah inaad ku calacalisid, wax dheeri ah sii aqrisid, wax dheeri ah sii raadisid. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
السلام عليكم أخيارت halkan nagala xiriirtay aad baad mahadsantihiin salaan kadib insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maartay almost aynu maartay koorsadii aynu gabagabeynay oo runtii aynu marinayno meeshii ugu dambeysay aynu marinayno marka insha Allah waxa la idinka doonayaa markan inaad maartay Ilaahay yiraahdo aad maartay maadaama aad koorsadii fiican la soo socotay inaad maartay project-kii aad samaysid so the project-kii ayaa maartay qofka laga doonayaa project yar oo HTML aad ku samaysid website yar oo aad maartay HTML ku samaysid ayaa maartay insha Allah laga doonaya marka waxaanu intusayaa project yar baan intusayaa insha Allah hadda waa aragtaan barnaamijkan halkan sawir baa ku jira halkan waxa ku jira video baa ku jira marka isagoo dhameystiran ma fiirinaya marka isagoo dhameystiran waa kan marka insha Allah isku day project yarka oo kale inaad samaysid halkan example xirfad kaab oo kale ka dhig halkan information yar ku qora halkan maartay waxa saartaa video yar saar soo soco xaggan maartay waxyaabahan soo galgali liiska la tirtirinayo soo galgali soo number soo gali soo kala duwan soo gali iyo maartay formkii iyo wixii ugu dambeeyay oo halka ugu hooseysa si aad aragtid formkii in maartay inuu ku samaysan yahay qayb form kamid ah marka at least bal waxa soo deedaa website-ka yarka oo basic ah website-yadii hore loo isticmaali jiray weeye 70-meeyii 90-meeyii iyo aan dhahdo 2000 iyo wixii loo gaaray bal isticmaali jiray oo HTML pure bas baa website waa lagu samayn jiray laakiin hadda website-ka waxyaabo badan baa lagu dhex daraa oo maartay HTML ku chassis frame-ka guud baa ku dhisan marka waa the same weeye hadda HTML-ka frame-ka waa mar walba lagu dhisaa kadib baa marka wixii kale casriyeena lagu daraa marka insha Allah isku day inaad maartay aad Ilaahay yiraahdo aad maartay sidaan oo kale u samaysid website yar oo maartay insha Allah uga faa'iideysid waxa kale oo idin dhiman hal qodob oo ah iframe-ka sida loo soo geliyo iframe-ka waxa la isticmaalaa YouTube example markaan soo furno marka kaba soo qaad muuqaalkan oo kale ayaynu dul tagnay marka share baynu leenahay share marka dhahdo waa YouTube-kii ba joogtaa waxa la dhahaa xaggan embedded si marka website-kaada aad toos ugu soo gelin kartid maaragtay copy baa leedahay markiina hadda soo copy-yeysano hadda kii aynu ku jirnay wuxuu ahaa kan uu ahaa okay aan fiirsho xaggan waa yahay waxaanu leenahay xaggan integeynaa embed soo soco okay aynu fiirino iframe okay waa kan iyo hore waa kasalaynaa kan soo dhignay aan save gareynay iframe baa la yiraahdaa iframe-ka sida loo isticmaalo waa sidaas iframe ku bilaabanaya iframe ku dhamaanaya saaragtid waxaan kalena wax kale ma aha allow full screen inuu ku dhaho auto play inuu automatic soo daari karo frame border baa loo sameeyay width-kiisa iyo height-ka maartay intuu leekaanayo iyo meesha laga soo qaaday oo YouTube-ka ah YouTube inuu file ku jiro marka hadda aynu refresh dhahno waxa arkaysaan inaynu maartay soo gelinay video-gu inaan soo gelinay marka aan play dhihi karno video-gan oo sharaxayo xirfad kaab sharaxaya inaynu maartay aynu soo gelin karno marka waxaan filayaa inaad marka fahamtay marka adiga waxa laga rabaa muhiimadda adiga laga rabaa hadda waxay tahay inaad project-gan insha Allah ay isku daydo inaad ku guuleysatid oo aad maartay hadii Ilaahay yiraahdo aad samaysid sida tan aad u raacdid oo nidaamkan aad maartay system-kan aad martid koodkiisa hal mar baan ku tusayaa laakiin isku dayin inaad koodkan aad copy-yeysid waxaad samaysaa adigu ka shaqayso adigu maartay isku day samee kadib wixii aad garan weydid oo halkan reference ooga dhigo marka waa artaan koodko hadhow qoraalka aad post baa dhihi doontaa video-ga insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo halka ugu hooseysa waxa inaga maqan difti waa xiran tahay iyo body oo xiran iyo HTML oo xiran bas baa hoos ka jirta hadda inta baa hoos ka jirta si aragtid hadda soo gaabsho waa arkaysaa insha Allah marka that's the code marka insha Allah isku day inaad maartay adigoona maartay koodkii aadin oo meel kale aadin aad maartay hadii Ilaahay yiraahdo aad maartay aad soo gashan kartid iframe-kaada iyo system-kaada insha Allah waxaan rajeynayaa koorsada tan inaad marka aad wax badan ka faa'iiday muhiimadda oo laga doonayo waxa weeye inaad practice samaysid ku calcalisid system-ka daba gashid HTML wax badan ka fahamtid insha Allah koorsooyina badan oo maartay web development-ga la xiriira ayaynu halka kan ku dhigan doonaa kuna soo gudbin doonaa hadii ay yiraahdo tani waa qayb kamid ah marka isku day inaad maartay practice badan samaysid wax badan fahantid wax badan waqti gelisid marka waxa ku fududaanaya inaad system-kii aad u kugu fududaado oo aad ku guuleysatid ama aad marka xirfadaadii web development-ga ahayd aad halkaaba kaba siiya amba qaadid hadii ay baydmo marka farsamada waa intaas waxaan rajeynayaa inaad maartay koorsadahan aad wuxuun ka faa'iiday hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah sidaas ayaa inoo balana khayr iyo barako aad baad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh